هاتو قطع صح ciidamada tarmeesha ku faylsan waa kuwa Jubbaland ee daraawiishta ah iyo kuwa federaalka oo ku soo biiray marka ay arkeen waxyaalaha jiro ama aragtida loo keenay ee cadow ee ay ka howlgalayaan saddexda degmo marka ay xog ogaal noqdeen wax meesha ka jira awgood ku soo biiray ciidamada daraawiishta ee Jubbaland ku soo biiray weeye waxa nasiib darro ah meesha iska kaashan lahaayeen cadowga ay ataagi lahaayeen in ayay la isaga dhigay al-shabaab maanta waa nasiib darro cid kasta oo Soomaali ah oo dalka iyo dadka ka dhaxayso khaasatan ugaashyada iyo odayaasha iyo shacab weynaha maxaa ku raada ay sheeg gobolka Gedo khaasatan nasiib darrada haysato cid walba waxa la rabaa inay maanta ka naxdo wadaninimada ay ka naxdo gabadha dhaawacmaysa ay ka naxdo odayga dhaawacmay oo ka naxo guryaha gubanaya ay ka naxaan waa aragtida siyaasadeed ee qaasatan gobolka Gedo loogu tiragalay weeye waad arkaysaan ciidanka kuwana al-shabaab maaha kuwana ciidan dawlad maaha waa laba ciidan oo Jubbaland daraawiishteedii ah iyo federaalkii maxaa ku raada ciidamadii ay u targasho gobolkan ay keentay weeye sidaas awgeed meeshii laga cabiri lahaa cadowga Soomaaliyeed ee argagixisada adduunka ah oo qaasatan Soomaaliya salka ka dhigata meesha laga wajihaa nasiib darro waxa keentay laba dhufaysan ayaga la soo geliyo oo maxaa ku raada meeshaas ay xabad dagaal ka qaadayaan cadowgina uu dul taagan yahay oo xabadda la wada gaadayo oo raba inuu maxaa ku raada inta dhan uu isku baabiyo maanta waa nasiib darro cid kasta oo Soomaali ah oo wadinada ay ku dheehan tahay waxaan tusaaleynaynaa aragtidaas ka jirta gobolka Gedo maanta sidaas awgeed cid kasta oo waxgar ah waxaan u bandhigaynaa nasiib darrada maanta haysata ciidamadannada al-shabaab baa hore u soo dhameeyay wiilashanadii waxay noqdeen mid qarax ku dhinto mid al-shabaab uu dilo mid madaxa lagu dhufto oo la jibiyo aabahood baa la soo dilay hooyad baa la soo dilay meeshii lagu wajihaa maanta ayagaa la isku wajahay waa nasiib darro Soomaaliya arag nin kasta oo wadani oo Soomaaliya oo arag siyaasi kasta oo arag madaxda qaranka Soomaaliyeed kuwa gobolada arka waxa ka jira maanta meesha sayid ah waa nasiib darro inteeda la eg cidda mas'uuliyadaas iska leh oo maanta qaasata gobolka Gedo barakicinaysa ciddaas ayada ah waa inay la xisaabtanto caalamkan waa inay la xisaabtama Soomaali weyna waa inay la xisaabtan nasiib darradaas ayada aad baad u mahadsantiin ciidamadii ayagoo wada jooga oo qaarkood u soo imaaday oo waxaas faanshu xun fahmeen waa arkaysa ayagoo isku dhax feelsan meesha maanta maxaa gure cadowgooda u diyaara in al-shabaab loo wajaha oo nasiib darrada loo soo wajahay laga wajaha u baahan ayaga maanta Abdullahi Abdullahi Maxamed ku magac dheer Anjeer tayo ururka ciidanka Baardheero khaasatan ani markaan noqonay askari Soomaaliyeed waxaan u noqday inaan al-shabaab la diriro oo cadowga al-shabaab u ahaa nolol wadaay marka iyada inaan qabayno Jubbada dhexo sida saako bu'aariya aras la qabanayo sidii nolol sheegay marka tababarka anagana uu ahaa 3 bilood iyo bil arurse waxay soo wadaba 2 sano meesha ku jirnay wax askarta anaga wax la qaaday wax kale wax soo arayba ururka anaga Baardheero waa la soo qaaday isuulana uu ahaa luuq waana la keenay wariyaal akalan warisiiyay waana la soo waday waxaana loo soo waday 3 degmo hadda gobolka Gedo loo fiiriyo nabad ahaa oo la isu maray ayaga oo isu furnaa waxaana la keenay Balaxaawo waxa la yiri cid in ka hor imaado oo inuu istaagto xabad madax ku dhufta marka anaga markii aan sii fiirnay oo fikirnay askari Soomaaliyeed oo xoog dalka Soomaaliyeed ka tirsan oo mushaar dawladda ka qaadanayo yaanigu askari Soomaaliyeed oo dawladda mushaar ka qaadanayo hadda ka soo qaadanayo mushaar ima soo dhaco inuu askarta hadda iga soo horjeedo mushaar ku soo dhaca anagii baa la saakaan dhigay al-shabaab iyo dawlad marka wixii la isku wada anaga waan fikirnay waan fahmi weynay haddii aan siyaasadii wax aan sii galno soo fikirnayna inaan hadaf qaldan ugu socdaan ogaanay waana ka soo tagnay haddana waxaa imaanay meesha ciidanka anaga kale uu joogay oo daraawiishta Jubbaland waana la soo dhaweeyay gacmo furan haddana meesha anaga joognaa wadaa cid qoriga iga qaadi male xorriyad baan ahay al-shabaab naani yaa haddii hadda la aado oo loo tago oo dan aad ka leedahay aan ku xirayn أنا قرية ما تعد قرية قاعدين ماله أجي حرتين ماله مركاني أسكري سوماليات بانهاي الشعب ولا دري يا أجي الشعب دري ثنا ولا لانهاي لكن عندي واحد كلا من سن أو إن أنا كسوق عن رحلة يسربته وادي أنا كمان يجرينا